dir iyo daabaan. dir waxaa la yidhaahdaa gudinta inta birta ah, haddii aan daabku la dhinna waxba ma goyso. daabaan waa daab, waa inta qoriga ah ee gudinta, haddii aan birtu ku jirin waxba ma goyso. sidaas darteed inta isku qabiilka ahi waa dir, inta xididka ahina waa daab. dulucdu waa in dadka oo dhammi yeesho xeer iyo xadhig wax ka dhexaysiiya oo wax la isugu noqdo. sidaas darteed si nolol wadaaggu u fududaado waa in wax isu ahaani jirto. waxa ay samaysteen gartalow bridge suurtageliya in qofku haddii uu beeshiisa ka dhex baxo oo beel kale dan ama muraad ka galo uu beeshaas ku yeesho cid ka sii horraysa iyo safaarad lagu hirto. taasi waxa ay keentay in ay guurka fogeeyaan, waayo waxaa imanaya muraado keeni kara in uu ninku qabiilkiisa ka dhex baxo oo uu beel kale dano u yeesho. mar haddii aanu wiil jirin waa in gabadh dhaxdin ahi beesha uga tirsan tahay. sharcigaas ayaa socotada lagu soo rayay. waxaa lagu meelmarinayay hebel waa nin ka tirsan qabiilkii heblayo ka dhalatay. gabadh beel ku jirta ayaa ku filnayd in ay beesha ay ka dhalatay danjire uga noqoto beesha ay u dhaxday oo qofka martida ama socotada ah lagu soo dhoweeyo laguna soo riyeeyo. xilligaas waxaa bulshada dhexdeeda ka dhashay murti iyo hallaysyo arrimahaas ku saabsan iyo xeerar beelaha ka dhexeeya oo guud ahaan iyo gaar ahaan danaha guud lagu ilaaliyo. sidaas ayay u baxeen halhaysyada ah inani waa meel xunjoog iyo inani waa haan abaar taal. inani waa meel xunjoog waxa ay odhaahdani u jeedaa in gabadhu qof baahan ama muraad leh ay u sii joogto meel uu ku jebi lahaa ama uu ku dhibaatoon lahaa. inani waa haan abaar taal waxa ay odhaahdani u jeedaa in gabadhaas la kala guursaday la mid tahay adiga oo kob abaar ah ku daalan surmi ku ah ama ku haraadan, dabadeedna si lama filaan ah ula kulmay geed hadh qabow oo ay hoostiisa taallo haan biyo ah oo galaankii la darsanayayna dul saaran yahay, kadibna ka badbaaday geeridii diiftii iyo raadkii xaaladaasi ku geyaysiin lahayd. waxaa loo jeeday nin beel aan beeshiisii ahayn u sadcaalay meel uu ku dhibaatoon lahaa ama uu ku tabaaloobi lahaa ayay gabadh dhaxdin ahi badbaado u noqotaa. inkasta oo dadku kala dhalasho yihiin waxaa mideeyey dhaqaalaha iyo dhaqanka ay xeerarka u samaysteen. qofku in uu tol yahay ama xidid yahay waxa ay fududaysay wada noolaantii iyo isweheshigii. waxa ay dadkii noqdeen gudin iyo daabkeed, waxaana jirid adag yeeshay isku xidhnaantii bulshada. intaas oo xeer iyo dhaqan ahi waxa ay hubiyeen sugnaantii iyo sal u dhigiddii nolosha. mar haddii bulshadaasi danta ka midaysan tahay oo ay ilaah keli ah wada leedahay, cadowgooda iyo cadowga xoolahoodu mid yahay dugaag, dulin, abaar, si ay u fududaato in ay nolosha wadaagaan waa in marka hore xadhigga isku xidhayaa noqdo in dadku tol noqdo ama xidid noqdo. sidaas darteed waxa ay isla garteen in gabadh ay ka dhigtaan gartalow ama xadhigga isku xidha. taasi waxa ay fududaysay in ay wadaagaan xoolaha, xoogga, daaqa iyo biyaha roobka, ugu dambayna ay ceelka ka wada cabbaan oo meerto iyo kaalin u samaystaan. halkaas waxaa ka abuurmay in dhammaan dadku noqdaan dir iyo daabaan, gudin iyo daabkeed. waxaa abuurmay safaarado, gabdho beelaha isku xidha si muraadada la isu yeeshaa u fududaadaan. qofku mar walba tolkii dhex joogi maayo. waxaa imaanaya sababo keena in ay lagama maarmaan noqoto in loo tallaabo beel kale. sababahaas waxaa ka mid ah safar iyo sadcaal, baadi maqan oo la raacdaynayo, roob beel beelaha ka mid ah dhinaceeda ka daay, marti ama in qofku beel kale marti u noqdo, magan gaar ahaan ragga oo beel kale magangala, ceel ay khasab tahay in laga wada cabbo, arrimo kale oo labada beelood kala gala ama isu geeya, kala guursiga iyo in gabdhaha la isdhaafsadaa waxa ay keentay in isu socodka iyo xidhiidhadu fududaadaan. waxaa kale oo ay suurtagal ka dhigtay in maganta ama baadida la isku hayo oo cadow iyo dugaag laga badbaadiyo. waxa ay keentay in qofka martida ah si xushmad leh loo sooro iyo in la wada dego oo la isdugsado. waxa ay sidoo kale dhalisay in si buuxda nolosha loo wadaago oo dadku noqdaan gacal aan dibad iyo dugaal ku kala maarmin. heerin. ereyga heerin waa erey haween oo u dhigma kudaal ama dhuyaal. waxa uu ka soo jeedaa noloshii sharciga iyo shuruuda lahayd ee qof kasta loo shintirin jiray ee ku dhisnayd qof weliba waxa uu leeyahay waxa uu la soo baxo. 99% ayaa tubta sugan ku arooray oo hufnaanta iyo raganimadu hoy u ahayd. waxaase jiray in yar oo bulshada ka mid ah oo nolosha ku guuldaraysatay quudhsina ku dhex joogay. nolosha waxaa dhex joogay qoysas aan magac iyo maamuus midina u soo hoyan. hablaha wakhtiga 100 halaadna waa laga bixin jiray, 50na waa laga bixin jiray. taas waxaa sabab u ahayd sumcadda qoyska. hablaha qoysaska astaanta lihii dhaleen waxa ay la baxeen heerin. guur looma hawaysan jirin inanta ka dhalata qoys aan maamuus lahayn. taasi waxa ay keeni jirtay quudhsi iyo qiimo dhac. waxaa kale oo ay keeni jirtay in hablaha qoysaskaasi dhalaan ee inanimada ku weynaada ama shindhaafa ay wakhtiyada qaarkood is urursan jireen oo ay rag doonan jireen.
dhinaca kale waxaa iyana jiray barbaar nolosha ku guuldaraystay oo aan hidinayn ama aan gacanta ku hayn xoolaha gabadhu ku xidhan tahay oo hablaha heerinka ah ka dhor sugi jiray. heerinka waxaa geli jiray inanta hablaweynta noqota ee cidikaam oo dhan weydo iyo inanta ay inanta ka yari dhaafto ee guurka kaga horrayso. marka cidi baayici weydo ama holin weydo muddo dheerna la hareer marmaro ayay xaaladani iman jirtay. waxa ay isku urursan jireen sida tahriibta maanta. waa hablo. hawo guur iyo hamo ayaa ku jirta. waa hunguroon jireen waxa ayse ka biqi jireen in hungurigu xaaraan u horseedo. iyaga oo taas ka digtoon ayay iyagu rag doonan jireen. 2 3 3 iyo 4 4 ayay isku raaci jireen. geyiga lagu yaqaano inta ay ka dhuyaalaan ayay beel ka durugsan beesha ay ka dhasheen u gudbi jireen. reer garangar ah ayay dul iman jireen aqal baana la geyn jiray. waxaa la sheegay in 4 hablood oo hablaweyn ahi heerimeen oo rag doonteen. waxaa la sheegay in 4tii hablood ay reer dul yimaadeen aqalka kambalkiisana fadhiisteen. waa la isla yaqiinay oo reerka ay dul yimaadaan waa bilkeedii jiray. gabdhihii waa la kaxeeyey oo aqal weyn baa la geeyey. neef baa loo qalay oo hilibkii oo xeedho lagu sido oo qiiqaya ayaa loo geeyey kadibna yacayga dabadiisa ayaa loo galay. hilibku waa qiiqayaa oo dabka laga soo qaaday. mid baa in la booday oo kulkiisii inta ay hayn weyday tuurtay oo deetana tidhi kuulaa kama naalee sugi kari maynee. mid kale ayaa yeedhay oo tidhi karan mayno ee kala goo yacni inta uu qaboobayo sugi mayno ee kulaylka inoogu kala jara. tu kale ayaa yeedhay oo tidhi naakumbii haanta biyood yacni haanta biyuhu ku jiraan ku rid si uu markiiba u qaboobo. tii afraad ayaa tidhi naa ha kan foofee korka saar yacni yacayga saar ha qaboobae. halbaha yacaygaa loogu jiraa oo mid weliba waxa ay tidhi waa la maqlayaa. markii waagu beriyey ee xoolihii dareereen ayaa 4tii hablood meel bannaan ah lala tegay. 3 baa la yidhi hore u sii socda. gabadhii afraad ee tidhi hilibka inaga qaboojiye ayaa lala hadhay. sababo caado ah awgeed beelaha dhexdooda saboolnimo nolosha ka jirta way jiri jirtay. isu dheelitiranka nolosha ayay ka mid tahay oo ladnaanta looma sina had iyo jeer. taas cidna laguma dhaliili jirin qoyska xaaladaas sababo la aqbali karo ugu suganna waa loo xooloweyn jiray. waxaase la diidanaa qoyska saboolnimadiisu danseeg iyo tacab la'aan ka soo jeedo. taasna waxaa ka dhalan jirtay dhaqan xumo doqoniimo iyo kalsooni darro keenta in qoyska sumcad xumo lagu naco. qoyska aan kaalin muuqata ku lahayn nolosha qiimaha hablahoodu hoos ayuu u dhici jiray. waxaa la tusi jiray sababaha ay wax ku waayeen si ay dhaliilahooda qomameeyaan. inanta noocaas ah hooyadeed ayaa marjo ah baali ah ama aan lahayn dhaqan karti iyo tarbiyad ay hablaheeda ku barbaariso. hooyada basarida ah iyo aabbaha aan bulshada dhexdeeda magaca ku lahayn eed ku hiisha ama gabadha ay dhaleen ku dhiirataa ma jirin. waayo inani 3 dhalka ayay hooyadeed ugu tagtaa oo gabadha laga guursadaa hooyadeed ayuunbay marka dambe noqonaysaa. hinaase. hinaasuhu waa cudur aan maaro lahayn. waxa aan u jeedaa waa cudur aan dawo lahayn. hinaasuhu waxa uu lumiyaa isku kalsoonida iyo xasilloonnida qoyska. waxa guurta xubinta iimaanka. inta la wada joogo tuhun baa lagu wada joogaa. waxaa hubaal ah in aan xanuunkaas laga bogsan. marka ugu dambaysana waxa uu keenaa qoys burbur. mar walba ninka waxaa haya jacayl aanu gabadha u furi karin ama aanu dhowrsoonaanteeda u aamini karin. sheekadan soo socotaa waxa ay marag u tahay hinaasaha iyo babisada ninka dul saaran. waa qoys mashkiladaasi dhex taallo. waa gabadh umul ah. ninku waxa uu leeyahay bayr iyo babiso cudurkaa salka ku haysa. inta uu guriga ka maqan yahay waxaa ku ogan dab iyo dhuxul warwar salka ku haysa. suuqa ayuu ka soo ambabaxay. gurigu waa aqal Soomaali. umul baa gudaha jiifta. ninku waxa uu caado u leeyahay in marka uu guriga yimaado uu dibadda ku hakado oo uu waxa gudaha ka socda dhegaha u raariciyo. guriga waxaa yaalla ashuun ama jalxad biyaha lagu shubto. ashuunku biyaha waa habayaa oo waxaa hoos yaalla weel ay biyaha tiflihii ku dhacayaan si guriga biyaha looga ilaaliyo. ninkii gurigu aqalka kadinkiisii ayuu ku hakaday. sanqadh iyo dhaqdhaqaaq ayuu dhegaha u raariciyey. biyahaas tifleh ayaa qalbigiisa lulay. isma odhan guriga gal oo bal waxaa socda isdul taag. biyahaas tifleh ayuu u qaatay in gudaha hawli ka socoto. dib buu isu melmelay. waxa uu daf yidhi saldhigga booliska. waxa uu dhiibay reboot odhanaya in afadiisii nin ku mashquul yahay. waxa uu ku dhaartay in arrintaasi jirto. dhowr nin oo askar ah oo nin madaxii wato ayaa la soo raaciyey. gurigii ayaa la dul yimid. ninkii madaxda ahaa askari ayuu amar ku siiyey in uu guriga galo oo uu ka war keeno. daqiiqad kadib ayaa ninkii waxaa hor yimid in askariga qudhiisu gudaha hawl ka hayo kadibna waxa uu yidhi sow galaaba raagay.